jirtayna fanaanadaho Hargeysa lagu xiray oo la yiraahdo Ubadaraksan inantaa markii la xiray iyo meheradaada ayaa isbarbardhig lagu sameeyay saacadihii ugu dambeeyay iyadoo ay dadku leeyihiin qaarkiis ma wada ahay maxaa hidda dhowr loo xiri waayay inta la xirayo Ubadaraksan sidaad u aragtaa adigu horta baraha bulshada daweynu ku wada jirnaa Yuusuf oo aan arkaynaa niman kala haanade waa niman xildhibaan ah halkan igala may qaadine nimanka xildhibaanada hore aan isu hayn marka qofku markuu doonayo meel uu ku soo maro sheekadu inanta ma taagna inanta dawlad ba xiratay oo anigu dawladiina ma yihiin xillow ma hayo wada meelan ku xidho inan fanaanada awoodeedii anigu badaha mabalihiba laakiin ma maqli jirtay meelan rabo roobigu eri shalaydan baan ka hadlay nimanka maxay haydayaan xildhibaanada marka meel ay ii soo maraan ayay leeyihiin iyaga laftigooduna way yimaadaan hidda dhowre haday xun tahay inay yimaadaan ma ahayn laakiin nin aan kala fikir duwanahay aniga fikirkayga la igu haystaa fikirkaygana hidda dhowr hadaan leeyahay iyo hadaan lahaynba tan waan difaacaya hungurina ma siisanayo marka fikirkayga difaacayana hidda dhowr ma iman karaan caweyskii daawo liman jireen ma iman karaan marka nin iska hadlay undhe way hidda dhowr maalmihii ugu dambeysay aad bay u hadalhayn badnayd waxa jirtay ina fanaanada hooyadana la yiraahdo Farxiyo Fiska oo sheegtay inaad u diiday inay ku qabsato bandhig faneed arinta maxaa ka jiray Yuusuf horta inad way la soo hadashay waxa igu tiri waxaan doonayaa inaan saaray ku qabsado ciida ku qabsado hidda dhowr imika 10 sano jirta 3 bilood baa uga hadhay waxaan ku yidhi ciida aniga fanaaniin bay la shaqeeya oo caruur leh oo maxay haydeen rabadaan oo dhan soo soomay oo u baahan wixii ay ubadkooda xaqal ciidka uga dhigi lahaayeen inay ka helaan marka cidba ma siiyo horana uma dhicin dibna u dhici mayso intaan noolay wixii ciida ka dambeeya showgaaga soo dhajiso dabadeedna maxay haydeen waad ku dhigan kartaa waa aniga qof fanaanadii waa isugu kaymid fanaaniintu iyadoon ciidiiba la gaadhin ayuun baan habeen subaxdii anoo markaa salaada subax u kacay telefoonkayga eegu waxaan ku arkay Farxiyo Fisko postcardkina soo samaysatay fariina ii duubtay oo igu tiri waan soo dhigay maxay haydayaan showgii dabadeedna waan la hadlay isla markiiba fariin baan ku celiyay waxaan ku yidhi ma shaqaynaysee ciida show lama dhigee ka saar marka ilaa maalintii dambaan arkay inay ka saari weydo dad badan baa adigu iyadaan arkay maxay haydayaan postcard marka la soo dhigay uma soo qaatoon meesha soo dhigan ku yidhi hidda dhowr ciida show laguma qabto waxay la ciidaa hidda dhowr shacabkeeda ku xidhan beentuna ma fiicna rabadaan kariim intaasaan ku soo qoray marka waaba tii waraysiyo badan iyo buuq iyo maxay haydayeen wixii ka dhacayay baraha bulshadooda maqlaysa aadiya anu hidda dhowr fanaaniinta siiya laakiin maxay haydayeen ciida iyo eedin meeyda iyo ma siiyo waayo 14 fanaan bay la jooga ay dhaqan bay la jooga dhowr ilaa 10 qof oo fan ku xiriira ayaa ka shaqeeya marka haddaan iyaga ka fadali waayo qof kale meel kale iga yimi wuxuu igu soo kordhinayaa ba iska yar waan siiyaa taas oo fanaan baa ka samaysatay show ku dhigatay dad badan baa jira oo jeclaysanaya in hidda dhowr la xiro maalmihii ugu dambeysayna ay aad iyo aad social media ugu soo daabacayeen dhacdadan inantan la xiray iyo ka horba inkasta oo dadka reer Soomaaliland badigoodu ay haday doonaan ka aragti duwanaan karaan sidaad adigu u arkaysaa in la jeclaysto xidhista hidda dhowr horta xidhista hidda dhowr way sahra la aamusiyo sahri ma aamusayso hidda dhowrna xaalad qalbashar kun baa xidhi kara bogcaday ku taalaanada waa halkan ku dhashay aan ku koray meel kale ninna dushiisa kuma taalo maxay tahay hidda dhowr ma fahanteen cid xidhi kartaa haba yaraateena oon ilaahay ahaynina ma jirto sabab markaa dadkan marka dadka eegto doonaya in maxay haydayeen
hidadhowr la xidho waa horta waa dadka baraha bulshada ku mamay qofku markuu daroogiista yahu darooga isku mudo uu balwad leeyahay dee adapted buu ku noqdaa marka waa dad ku mamay oo doonaya waxay maxay ahayd reaction iyo waxaan ay sheegaan ay ka celiyaan doonaya dadka ku badsadaan uma malaynayo aniga qof Somaliland jecel inuu hidadhowr in la xidho waayo haddii hidadhowr la doonayo in la xidho miyaa la iman lahaa ciidii meelan lala meel dadka kala fadhiisanaan weyne mar walbana waa sidaa hidadhowr marka dadkan imanaya ama junuud kale meel kale laga soo dirayba maana Somaliland reer Hargeysa ahayn iyo de Soomaalida kaleba qof walo yimaada ama dibaha ka yimaada ama gudaha ka yimaada ubadkeena qurbaha jooga ayaa ku soo talama markay fasax u imanayaan inay hidadhowr tagaan oo yiraahdaan waxa ahayd riyadayda ahayd inaan hidadhowr tago marka hidadhowr hadii wixii maxay ahaydeen de ceeb laga dhigan ceeb way yeelanaysaa laakiin waxa weeyaan nadaa oo naga aamus hadii kale hidadhowr baan ka xidhaynaa ma albaabada la isugu dhufto aniga waxa ay qiimo badan Somaliland hidadhowr